بسم الله الرحمن الرحيم كسو دواده شبكة sologroups.com ee laga barto cilmiga ICT iyo English ee ku baxa luqadda afka Soomaaliga magacaygu Cabdina Ismaaciil emailka saddexaad ah info@sologroups.com waa casharadeenii xiisaha lahaa ee security and testing oo aan ku barano dhanka iyo ICT ee security kala duwan waxaanu baran doonaa a professional phishing scammers macnaheedu waxay tahay phishing waxa la yiraahdaa qaabka loo xado bangiyada oo ay sameeyaan dadka la scammers waxa la yiraahdaa dadka tuugada online-ka qaabkay u sameeyaan iyo ka hortagida iyo sidii loo badbaadin lahaa bank account marka waxa dhacda dadka ku nool wadamada galbeedka iyo bariga dhexe inay arrimahan oo kale marar badan ay la kulmeen marka qaabka ay u sameeyaan iyo qaabka looga hortago ayaan baran doonaa ka hortagida aad ay u fududahay laakiin waxay sii noqdeen sida aad ku aragtaan ereygan halkii professional waxay noqdeen si ka dheeraysa bangiga ayay yaqaanaan qaabka maaragtay loo xado wax walba loo sameeyo marka waxaan ku sameynaynaa Bank of Ireland phishing ay ku sameeyeen dadka noocan professionalka ay ku sameeyaan marka tijaabo ayaan ku sameynaynaa sida ugu fudud ee dadka ugu xadaan oo arki doona iyo sida looga hortago marka ugu horeyn waxa muhiim ah in aan disable aan ka dhigno antiviruska sababtoo ah faylasha aan isticmaalayno haddii uu arko hore ayuu delete ka sameynayaa waxaad isticmaali kartaa vmon environment oo ah virtual pc si computerka waxba aan u gaarin tan labaad waxaad aragtaa shadow mode-ka waan naqaanaa waa softwareka shadow defender oo aad ka download garan kartaan sologroups.com waa software la isticmaalo xilliyada arrimaha viruska ama phishingka waxaan computerka lagu sameeyo haddii reset aan ku sameeyo computerka waxa iska bedelaya male waa deep freeze oo kale marka aad ayuu muhiim u yahay waxaan kaloo isticmaalaynaa xilliyada noocaana waxaan isticmaalaynaa saa la socotaan hide my eyes professional VPN ayaan isticmaalaynaa oo ah proxy oo ah kan ugu muhiimsan marka waxa ku jira haddii aan halkan eegno wadan walba ayaa ku jira uu qarinaya wadankaas ayuu ka dhigaya marka ma doonaysid haddii noocyadan oo kale aad sameynaysid in sidaas ku dhaaftaan marka aad ayuu muhiim u yahay kaas marka xilliga aan sameyn doono waxaan raaci doonaa sida ay isugu dayaan iyo qaabka ay ugu shubaan systemkaaga ama online-ka wuxuu ahaada tabcan waxay isticmaalaan PHP shell si ay upload ugu sameeyaan kaas oo ah advance insha allah 10 ayaan ka sameyn doonaa ugu horeyn waxa desktop-ka noo yaala file-ka oo diyaar ah halkan ayuu yaala marka haddii gadaal aan u noqdo waxa la yiraahdaa file-ka sidiisa media ayaa la yiraahdaa desktop ayuu yaala marka intaana file ayaa ku jirta file login account click complete index.php tabcan isla markii hore ayaa garanaysa PHP ayaa lagu sameeyey HTML ku jiro loading login error login.php step 1.php step 2 iyo ugu dambeyn step 2.php marka ugu horeyn waxaanoo diyaar ah oo aan tijaab ku sameyn doonaa shabakadeena solarnetwork.com ayaan isticmaali doonaa si aan ugu sameyno tijaab aan ugu sameyno marka solarnetwork.com ayaan iminka tegaynaa marka waxa dhacaya eeg marka phishingka xilliga lagu soo diro ama website lagu qariyo ama si gooniya lagu soo diro qaabkan ayuu u shaqeeyaa marka haddii aan yiraahdo solarnetwork.com aan galo waxaad aragtaa in Bank of Ireland soo baxay marka indhaha halkan ku qabo waa solarnetwork.com login.html calaamad su'aal SSL equals yes marka qofka majority-ga dadkooda intooda badan oo aan aqoonin haddii loo soo diro isla bankigan Ireland ama banki Soomaaliya ku yaala ama banki kale uu yahay u malayn maayo inuu phishing yahay sababtoo ah indhaha bani aadamka halkan ayuu qabtaa halkan ma qabto halkan ma eegayaan waxaana ugu muhiimsan website kasta oo payment ama wax lacag laga bixinayo ama laga qaadayo in halkan uu lahaada HTTPS Hypertext Transport Protocol secure waa inuu ku jiraa halkan hoosena u yaala VeriSign oo ah qoful inuu ku xirnaada macnaheedu waxay tahay waa secure marka laakiin qofka halkan soo gala tusaale ahaan bankiga ayaa doonaysaa inaad log on ku samaysid wuxuu yiri welcome to 365 online Bank of Ireland waxa lagu yiri user ID-gaaga gal ayaa lagu yiri user ID-gaaga haddii aan yiraahdo user ID-gaaga waxa la yiraahdaa Solo Groups kadibna waxa lagu yiri
please enter your 6 digit waxaad gelisaa pin numberkaaga ama raqamka sirta ah adiga leedahay ee 6 geliya lagu leeyahay tii aan idhaahdo 1 2 3 4 5 6 ilan isticmaalihiisaan ayuu geliyaa iyo ugu dambeyntii waxaa lagu leeyahay waxaad gelisaa digits of your contact number telefoonkaaga 4 number ee ugu dambeysa geli 2244 ayaan leeyahay marka isticmaalihii rasmiga ahaa ama genuineka ahaa ama originalka ahaa wixiis wuu yaqaanaa sidan ayuu u isticmaalaya marka wuxuu leeyahay next ayuu leeyahay isla markii a system is processing your request this might take several minutes ayuu leeyahay markaasuu leeyahay waa la garan waayey fadlan verification ku samee ama xaqiiji ayuu ku leeyahay weli waxaad aragtaa in halkan uu yaallo solonetwork.com/step1 kii haddaan aragnay html kadibna koodka sida u shaqaynayaan arki doonaa marka qofkii markuusan usoo galay wuxuu ma eegaya meel kale qof eegaya halkan ma jirto haba yaraatee marka haddii aan halkanan eego ishaada ku dhufo hoos continuous submit meesha qoran tahay halkan hoose eeg inaha ku qabo haddii aan idhaahdo macnaheedu waxay tahay step1.php ay aadaysaa ma aadayso meel kale marka qofkii iska lahaa accountka wuxuu leeyahay magacayga waxaa la yidhaahdaa Ilyas Ismaaciil adresskaygu waa 234 West End Road waxaan deganahay magaalada London waxaa la yidhaahdaa accountiga tusaale ahaan Essex waxaan dhashay ayuu leeyahay 2010 waxaan dhashay 1979 tusaale ahaan isla markii hooyada magaceed ayaa la leeyahay wuxuu leeyahay hooyaday magaceeda waa kaas waxaa la leeyahay street wado ama area aad ku nooleed xilligii 10 jirka aad ahayd waxaan leeyahay wuxuu leeyahay gaalkacyo kadibna email addresskaaga soo galaya leeyahay email addresskiisa ayuu halkan ku qorayaa wuxuu leeyahay ilyas@sologroups.com ayuu saan u leeyahay marka qofkii ma ogaanaya halkan waxaa looga dhigay calaamadda xidigta ah ee halkan sidan u taalla ama starka ah waxay la mid tahay mandatory waa qasab waa inaad gelisaa tusaale ahaan haddii aan geliyo kan kaliya oo kuwan aan ka tago shaqayn maayo markii sidan uu yidhaahdo tusaale ahaan haddii kan dushiisaan aan u tago meel uu geenayo male sababtoo ah ma la doonay in kan la isticmaalo wuxuu leeyahay continue markuu yiraahdo waxa leeyahay kaarka numberkaaga noo sheegaya leeyahay si aan u xaqiijino please verify your visa cardkaaga verification ku samee ama hubaal ka dhig ama hubi ama xaqiiji ayaa lagu leeyahay xaqiiji ayaa la yiraahdaa marka waa mandatory waxaan leeyahay tabcan kaarka systemka waa ogyahay waxaan leeyahay kaarka wuxuu ahaa 4457 4568 iyo isku raacaa 4123 iyo ugu dambeyn 8749 ayuu noqonaya ayaan leeyahay kadibna goormuu dhacaya waxaan leeyahay waxaan customerkii aan ahay isticmaalihii wuxuu dhacayaa 2017 kaararka haddii aad eegtaan gadaal waxaa kaga yaala 3 digit ama xisaab oo security numberka waxaan leeyahay waa 123 ayaan leeyahay kadib wuxuu ku leeyahay 4 digit ugu horeysa account adiga leedahay qofkii uu yaqaana waa 1234 ayaan leeyahay 4 digit ugu horeysa ugu dambeys wuxuu leeyahay verified by visa deactivation of the card yes ayaa leedahay passwordkaaga markaad geli marka passwordka ayaan gelinayaa oo aan loo jeedin 123 marka wixii dhan waan sameeyey kadibna waxaan leeyahay waxaan doonayaa kaliya accountkayga inaan la soo laabto ama aan soo celiyo continue ayaan leeyahay system is proceeding your request this might take several minutes iska sugo ayuu ku leeyahay systemku raadinaya marka loading ayuu ku sameyn html your account muxuu leeyahay iminka is verified waa la xaqiijiyey thank you for your time iminka wuxuu ku leeyahay wuxuu ku geynayaa bangigii originaalka ahaa ee rasmiga ayuu ku geynayaa waa kaas marka waxaad aragtaa iminka Bank of Ireland in lagu geeyey halkan marka adigu waxaad leedahay akaankaagii waa lagu geeyey halka maxaa dhacay oo systemka uu ku siin waayey marka waad ku laabanaysaa marka kii bankiga caadiga ayaad galaysaa iminka waad helaysaa laakiin it's too late adigu way kugu dhacday marka bal aan ka baxna halkan markay kugu dhacdo ugu horeyntii waxaan samaynay halkan haddii aan aado waxaa halkan yaala html-keeda ayaa halkan taalla bal aan eegno file ayaan leeyahay open ayaan leeyahay waxaa halkan yaala mediaha oo desktopka oo aan uploadka ka dhigna ftp gaan arki doono fileash halkan ku jira eeg halkan ayaa ka gelaya fileka haddii aan tago isla kan ayuu noqonayaa media fileasha ku jira eeg
shaqsigii phishing sameynayay wuxuu isku dayay wax walba oo bankigu leeyahay oo image ah inuu copy ku sameeyo eeg siduu sameeyay Bank of Ireland siduu sameeyay eeg Visa logo Visa verified by Visa wuxuu geliyay animationkii halkan u yaala iyo halkan waxa yaala JavaScript script file ayaa halkan san u yaala iyo waxa kale oo arkaynaa in uu ku jiraan styles halkan ay ku jiraan CSS uu ku jira halkan marka saan u xaqiijiyo u eego waxaan tagayaa horeen fileka ayaan tagayaa haddii aan eego JavaScript halkan yaala waxaad u jeedaa in wax walba oo aan aragnay hadda mandatory laga dhigay xilliga last name first name mandatory wadada wax walba halkan yaan loo geliyay kana waa aragtaa wuxuu ku dhisan yahay PHP ayuu ku dhisan yahay kan waa JavaScript tabcan saa ku aragtaan wax walba loo habay kadibna haddii aan ka baxo waxaan eegayaa style sheet ayaan eegayaa waxaan leeyahay open style sheet kadib aan furo waxaan u jeedaa nooc walba oo style sheet sababtoo ah waxaa la doonayaa shakhsiga isticmaalaya xitaa hadduu wax ka yaqaano computer in uusan is oran shabakadan waa phishing scam oo iska ilaaliya marka waad aragtaan nooc walba oo block ah oo stylekii colorkii midabkii nooc uu ahaado text decorationkii sizekii halkan ayaa loo soo geliyay haddii aan tago file open file aan idhaahdo oo aan ku laabto dhanka media aan ku laabto waxaan tagayaa loginka waxa lagu siiyey different index ayaa lagu siiyey waa ujeedaa kan waa loginkii waxaa ku jira nooc walba oo secure ah oo lagaga dhigay genuine haddii aan ku laabto open file ayaan leeyahay iminka waxaan tegayaa mediaha waxa halkan yaala account iyadoo ay tahay HTML haddii laba jeer aan riixo waxaad aragtaa navigationkii Bank of Ireland say u geliyeen qaabka loo geliyay bal eeg haddii uusan sii digo for more information waxaa laga dhigay as genuine secure verification step 1 of 2 system is proceeding your request uu raadinaya this might take several minutes qaabkan waa qaabka bangiyada ay yiraahdaan xitaa waxaa loo soo geliyey file loading xilligu uu sameynayo image gif ayaa ku jira waa ujeedaan marka wuu soconayaa animation saan u soconaya adding payee wax walba sidan san ayuu soconaya waad ujeedaa siduu bankiga ahaa ayaa laga soo koobigareeyey ayay saan usoo sameeyeen si ay u xadaan wax walba oo ku jira bankiga marka waa everyday sida lasaga xado xitaa fiiri waxay usoo sameeyeen qaabka haddii aan idhahdo preview halkan aan idhaahdo fiiri marka qof is oranaya haba yaraatee ma jirto waa original waa wixii hadda aan buuxinay verificationkii aan ku sameynay koodka sidan halkan loo soo dhigay xitaa ma doonaysid inaad ka soo boodid halkan isla markii uu soo gelaya ujeedaa dushadii aan tago please enter your surname please waxaad gelaysaa street addresskaad ayaa gelinaysaa marka dhammaan halkan ayaa la soo geliyey si wax walba ay u ekaadan sidii loogu talagalay kadibna waxaan tegayaa file ayaan leeyahay open file ayaan leeyahay iminka waxaan eegayaa complete markuu yiraahdo oo halkan aan ka eego wuxuu leeyahay your account is verified marka cid shaki ay ka galaysa male kana marka wuxuu leeyahay you will be redirected read our privacy halkan riix haddii redirectionka lagu sameyn marka haddii hoos aad si aragtid waxaad arkaysaa in verificationka xilliga la sameeyey you will be redirected markuu yiraahdo wuxuu siinayaa dhowr ilbiriqsi ayuu siinaya kadibna wuxuu geynayaa bankofisland.com legal kii haddaan aragnay kaasoo ah kan originaalka oo rasmiga ah marka qaabkaas ayaa qofka ay u wareeriyaan kuwa bangiyada wax ka hada haddii aan idhaahdo open file again waxaa halkan yaala kan oo muhiim ah index.php marka waxaa yaala fileka waxaad ku aragtaa location.html login ssl equals yes waa secure fileka wuxuu la mid yahay kana waxaa ujeeda variablekan php-ga halkan loogu dhigay xilliga taariikhda waqtiga sanadka wax walba halkan ayaan loo geliyey haddii aan ku laabto waxaan doonaynaa one by one inaan aragno waxaan aragnaa loadingka kan aad u muhiim yahay haddii aan ego verify idhaahdo waxaad aragtaa loadingkii uu sameynayo qof ka shakinaya haba yaraatee ma jirto loading halkan ayaan lagu sameeyey haddii aan ku laabto open file ayaan leeyahay login error wuxuu ku siinayaa error sidaan ah oo ku leeyahay error ayaa jira marka saa awgeeda waxaad gelisay waa qalad marka kaas wuxuu hoos imaanayaa login.error ayuu noqonaya oo ujeeda invalidate please try to enter shakhsiga isticmaalaya ee account iskale ayaa confusion laga dhigaya si ugu maleeyo inuu yahay marka kan halkan sidan u yaala ayaa muhiim ah oo halkan yaala oo la doonaya haddii aan idhaahdo control iyo f ayaan isku qabanayaa isaga ayaan halkan kusii daynayaa waxaan leeyahay all fine text ayaan leeyahay waad ujeedaa secure login markuu soo baxo form
user ID spam class style wuxuu noqonayaa invalidated please try again kana sana kugu soo saaraya please enter your user ID oo strong ah please enter 6 digit halka ayaa laga soo qaaday marka sidoo ahaa ayaa copy looga soo dhigay haddii aan ka baxo oo dhankan aado file open file aan yiraahdo imika waxaan arkaynaa login key haddii aan yiraahdo halkan waa kan login key marka shaki haba yaraatee kaa geli maayo waxaad u malaysaa haddaba waxaad samayn kartaan Bank of Ireland oo rasmiga haddii aad eegtaan qaabkan ayuu u dhisan yahay haddii ilaa hoosan si aado xitaa waxaa loo soo geliyey user question answered qofkii su-aalaha kaaga jawaabi lahaa adding payee update-ka wax walba halkan ayaa lagu soo dhigay marka shaki cid uga gelay haba yaraatee ma jirto waad u jeedisay sida loo sameeyey marka waxaan soo gaarinaa iminka kuwii ugu muhiimsanaa oo login.php step 1ka marka haddii halkan aan ka eego step 1ka waa kii haddaan aragnay oo wax walba sidaan loo gelinay step 1ka step 1ka wuxuu samaynayaa kan ugu muhiimsan oo magaca awowga cinwaankaaga magaaladaada gobolkaaga hooyadaada magaceeda maada maiden nameka bangiyada waa su-aalaha ugu badan ay weydiiyaan qofka asoo waxa lagu leeyahay what's your mother's maiden name hooyada magaceeda aabaha magaceeda maiden nameka magaca dhexe ayaa la yiraahdaa waa maxay marka wadadii ama areadii aad ku nooleed xilligii 10 jirka aad xusuuso anaga waxaan ku dhignay gaalkacyaan ka dhignay email address-kaaga wax walba laga qaatay marka qofkii ka hela halahaas waxa qasab ku ah in uu heli karo wax walba file open file haddii aan yiraahdo waxaan tegayaa iminka ugu dambeyn waxaan tegayaa step 2 ayaan tegayaa .php yaan laba jeer saan u riixayaa marka halkan ayaa ugu muhiimsan marka waxaad arkaysaa halkan in ay ku qoran tahay PHP session sidan uu bilowday kaasoo ah xilliga shakhsiga laga qaadayo si loo qaadaa marka wuxuu qabanayaa kaliya ma ahan waxaad ku qortay wuxuu qabanayaa IP address-kaaga ayuu qabanayaa IP address oo jeeda variable IP marka wuxuu ku leeyahay variable as subject variable card variable IP saddexdan isoo wada qabo mail marka waxaad u dirtaa uu ku leeyahay info@sologroups.com marka waxaanu sameynaynaa email ayaa halkan noo furan si aan u xaqiijino emailka waa empty box waxba kuma jiro waxaa yidhahdaa solarstila@gmail.com marka meeshuu kan ka yahay adna waad bedeli kartaa xilliga aad tijaabada ku samaynaysid dabcan si kale ha u isticmaalin waxaan ku bedelaynaa solarstila@gmail.com ayaan ku bedelaynaa halkan marka solarstila@gmail.com markii aan ku bedelo dabcan waxaan leeyahay control iyo s ayaan leeyahay si aan u keydiyo marka subjectigan wuxuu noqonayaa messageka systemka uu soo diray wuxuu ka yimid iyo ku leeyahay from Bank of Ireland card and bankofireland.com ayuu ka yimid iyo ku leeyahay marka locationkana headerka ah loading.html iminkaas wuxuu helayaa IP-gii iyo wuxuu helayaa iyo wixii macluumaad ah ee loo diray ayuu helayaa marka waxaan tegayaa dhanka iyo FTP-ga waxaan aragnaa FTP-ga inuu sida noogu furan yahay dhanka waxaan gelay public HTML-ka www-ga si uu soo baxo halkan marka waxa kaliya aan bedelay waxay tahay in aan tago media aan tago waxaan bedelnay oo kaliya wuxuu ahaa in step 2.php aan ku bedelno kaliya uu ahaa marka si aan u bedelo waxaan soo qaadayaa step-kan oo ah step 2.php ayaan leeyahay control copy ayaan leeyahay gadaal ayaan laabanayaa halkan ayaan dhigayaa marka override ayaan ka dhigayaa waa ku dul wuxuu leeyahay wuu ku jira yes sababtoo ah waxaan bedelnay passwordka ayaan bedelnay marka halkan www-ga ah oo public HTML-ka isla page-kiisa waxaan gelinay wax walba halkan ku jiray account click here kana click here wuxuu ku tusayaa tabcan in wixii dhankii laga soo galay IP address walba ayuu ku keydinaya kan complete soo ah indexkii license loading error wax walba halkan ayaa lagu soo dhigay marka waxaanu sameynaynaa in aan aadno oo aan ku laabano meeshii oo aan samayno iminka marka waxaan leeyahay Solar Network sababtoo ah waxaanu bedelnay emailka ayaanu bedelnay emailka haddii aan bedelnay kii hore tabcan wuxuu aadayaa info@sologroups ayuu aadaya haddii aan lagu samayn laakiin waxaan doonaynaa in uu galo emailka aan samaynay Solarstila marka waxaan leeyahay halkan ayaan ku bilaabaya mar labaad waxaan leeyahay please enter your ID Sologroups ayaan leeyahay 6 digit-ka oo pinkaaga waxaan leeyahay 1 2 3 4 5 6 ayaan leeyahay last 4 ayaan leeyahay kan waxaan leeyahay 2 3 4 5 ayaan leeyahay continue ayaan saan u leeyahay marka systemkii waan aragnay qaabkii ka dhisna qof ay halkan eegaya ma leh
marka ayuu noqonayaa marka isla wixii ayaan isticmaalayaa sababtoo ah Ilyas Ismaaciil ciwaanka waxba ma leh haddaan xasuusan 1 2 3 waxaan leeyahay West End Road waxaan leeyahay waa London hoos ayaan imaanaya waxaan leeyahay gobolka waa Essex dhalashadaada waxaan leeyahay 21 1979 ayaan leeyahay hooyada maxaa la yiraahdaa waxaa la yiraahdaa Lul sidii wadanka ku nool magaalada ku nool xilligii aad ahayd 10 jirka gaalkacyo ayuu leeyahay emailkaaga wuxuu leeyahay ilyas@sologroups.com ayaa la yiraahdaa horay u soconay isla sida ayaan raacinaa sababtoo emailka ayaan bedelnay kaar numberkaaga muxuu noqonayaa 45678978 45632147 goormuu kaa dhacaya wuxuu iga dhacayaa bisha October 2018 saddex security 1 2 3 ayaan leeyahay 4 digit 45 si fiican ah uu qabo marka verification ma samaysa kana waa security uu adag ha way samaysaa ABC 1 2 3 ayaan ka dhigayaa iminka waxaan leeyahay continue ayaan leeyahay markuu yiraahdo system is processing your request wuxuu leeyahay wax yara sugay ku leeyahay wuxuu iska dhigay wax raadinaya jiifkiisaan u sameynaya waad u jeedaa marka shaki ka gali maayo verification lagu sameeyay complete iyo noqday wax kale adiga waxa is leedahay iminka account-kaaga ku furmaya laakiin kuma furmayo ilaa wixii dhan ayaa laga xaday wuxuu ku geynayaa bangiga ayuu ku laabanayaa ujeedasaan ku aragnay marka waxaan aadayaa iminka emailkii tuugii iska lahayaan aadaya haddii saanan u furo maxaad ku aragtaa Bank of Ireland ayaa halkan saan u yaala marka meeshay ka timid waa Bank of Ireland waxaa loo soo diray meesha ayaan loo soo diray marka haddii aan furo maxaan ku arkaa userka Solo Groups last contact waa kan magaciisa meeshuu ku nool yahay magaaladu uu ku soo koray markuu halahan ahaa gaalkacyo emailkiisa Ilyas@sologroups kaarkiisa waa kan expiry securityga accountiga ABC kan ugu dambeeya iyo IP addresska uu ka soo galay shakhsigan waa kan ayuu ku leeyahay halkan IP address uu ku yaalaa طبعا waa yara qarsan yahay IP address la arki maayo marka wuxuu ku tusayaa sidan fudeedka ah ee phishing scamka ay u sameeyaan marka waan garanay qaabka loo sameeyo marka sidee looga hortagaa marka bangiga aad leedahay nooc uu ahaadaba waxa muhiim ah in mar walba xilliga aad sameynaysid submitka ama aad galaysid in aad eegtid dhanka hoose tusaale ahaan haddii aan yidhaahdo login to 365 online waxaan arkaa halkan indhaha ku qabo waa secure haddii aan yidhaahdo HTTPS ayuu ku leeyahay laakiin haddii aan ku geli lahaa kii caadiga ahaa haddii aan ku geli lahaa oo hadda phishing scamka ah haddii aan ku geli lahaa wuxuu noqon lahaa continue haddii aan yidhaahdo halkan waxba kusoo bixi maayaan mujeda dhankan haddii aan eego bangigii caadiga ayuu kugu xirayaa kan haddii aan eego wuxuu kugu xirayaa bangiga caadiga ahaa kan haddii aan eego wuu ka qarinaya kuwaan dhan bangiga caadiga ah laakiin kan haddii aan yidhaahdo next aan yidhaahdo tabcan haddii next aan yidhaahdo shaqayn maayo sababta wuxuu ku leeyahay invalid ayuu ku leeyahay marka qaabkaas ayuu u shaqeeyaa sida looga hortago oo loo sameeyo oo wax walba loo sameeyo waa qaabkan aad ayay muhiim u tahay marka waxaan filayaa casharkan xiisaha leh ee aan ku baranay security and testing oo ah professional phishing scammers qaabkay u shaqeeyaan iyo sida looga hortago marka prevent waa ka hortagidda iyo adkaynta bangi account adiga aad leedahay isku day fileka aan ku sameynay ee media isagoo diyaara wuxuu hoos yaallaa videogan ayuu hoos yaallaa marka isku day inaad isticmaashid tijaabahan u isticmaashid tabcan ha u isticmaalin si kale hadaa u isticmaashid adigun baa ka mas-uula kani waa educational purposes only loogu talagalay sababta waxaan doonayna inaan ka hortagno qaabka qof walbana markuu arko wuxuu leeyahay qaabkaas waa inaan ka hortaga bangi walbana san ayaa loo isticmaalaa marka waxaan filayaa in aad ula dhacdeen wixii macluumada mar walba info@sologroups.com anigoo ah macalin cabdinaasir intaa wada kulmi doono waxaan kaga tegayaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu